أنا أقول هذا ما عوفتك يا كقرن كوا وحنو آدي هذه كم هذا قينا قبل هان مدحضة يددوينها قبل كقبلي بها سودوين تي مانت أو أهيد سودوين قرن آدي آدي كم هذا قينا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أنت أكدب وحن صلاني يوم هذا الجيدين يا مدحوينين شرفت له مسبيحي عبدي هالنولاضو الراقو شرف يوم مسكو نقول يهي ودقمديسي هالكو جوغا قبل كيسي إن لغو سور دويو لغو ماموسو لغو شرفنا حق بولي يهي أنت أكدب halkan waxa weeyaan haween weynihii gobolka ama degmada Gabiley aad bay ku salaamayaan kuna soo dhaweynayaan maanta oo dhan bana way sare joogeen soo dhaweyntaada iyo maamuustaada iyo haddii la odhanayo aragtidaadaba way soo joogeen caawana wixii dan ee degmadu leedahay kala hadlaynaa madaxweyne waxaan u malaynayaa inaanay wax haddii la odhanayo dee baahi gaargaara madaxweyne waxba ka qaban kari maayo baahi degmana dalkaanu uga simanahay waxba kugu dhibi mayno oo dalkaanu ka simanahay hadduu abaar tahay iyo hadday sixir barar tahay iyo hadday roob yaraan tahay oo sarci bixin intaba ummadaanu kala midnahay shan kasta oo sarca dheerayn gobolada oo sarci weli liito marka waxaan u malaynayaa intaan anigu dhaafayana inta kale iga daba hadli doontaa dhamayn doona. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه ثم ما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته مدحوينها وزيرده وفتي قبلارن وهو قامينيو هوينها قبل كي مدحوا قبل كبا waxaan ku salaamay salaanta islaamka ilaah subhanahu wa ta'ala inooga jideeyo fooq sabca samaawaat talaan kadib ilaah subhanahu wa ta'ala ma had balaadan leh ilaaha amni iyo iimaan isugu keenay inagoo nabad qabna caafimaad qabna waxaanu ka cabsanaynaa inaan jirinayno halka ku fadhino ma hadoo dhan rabbi baa la fillaah alxamdu wa ni'ma inta kadib mudana madaxweyne ku soo dhawow gobolkaagi ku soo dhawow dadkaagi ku jeclaa anigoo ku hadlaya magaca dumarka gobolka oo dhan waxaanu ku leenahay qalbi furan iyo niyo furan baan ku haynaa waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku soo dhaweyn doonaa aad iyo aadna waxaanu aad ugu faraxsanahay oo aanu qiraynaa inaad horumar balaaran adiga iyo xukuumadaadu sameeyeen waanu idin qiraynaa waanu idinku mahadnaqaynaa laana qofka aanu mahadnaqin insaanku Allah subhanahu wa ta'ala uma mahadnaqo runtii nicmadu qofba dhinac bay ugu muuqataa annaga waxaan dareemaynaa maanta waa maalintii koowaad ee aanu madaxweyne hor nimaadno bal madaxweyne iska daaye madaxda kale ma hortigi naqaano sababtoo ah inkastoo anugu ahay gudoomiye xaafadeed haddana waxaan ku hadlayaa maamulka markadka ummahatul muuminiin way nagu adag tahay inaan saldhig istaagno oo aanu warkayga sheegano sababtoo ah waxaan nalagu qabtaa kulli iyadoo amni la ilaalinayo haddana waxay dhici jirtay in ama xijaab la isku eriyado ama niqaab la isku eriyado laakiin caawa farxad gaaraan dareemaynaa annagoon iska rogano oo loo halkaa joogno waanad ku mahadsan tahay waxa sidaa yeeli kara waxa weeyaan qof diin jecel qof xijaab jecel qof dareemaya gabadha muslimada ah iyo waxa ilaahay ka doonayo aad baanad ugu mahadsan tahay waananu kaaga mahad celinaynaa sida imaama ku sheegtay waxaanu nahay group aan isku bahaysanin waxa dad isku bahaystaan sida qabiil reeraysi markaas iyo dangaara waxaanu nahay group isugu xiran liwaji ilaahi tacaala kana kooban inta ay tahay Somaliland dal iyo dibadba meel aanan joogini ma jirto ma sha Allah tabarakallah waxaanu ku haminay inaan dadkayga wax u qabano waxaanu aasnay markas maanta ku yaala Gabiley qiimaha ku gacay $200,000 in yar ka dhinayd ilaahayna taabageliyay noona suuragalay inuu noo dhamaado ma sha Allah waxaan isleenahay waxaad qabateen in loo baahnaa in la iska qabto kullayna waajibku dadka uu kala saaran yahay xukuumadahan waxa weeyaan in laga warhayo cid walba ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka waajib saarayna waxa weeyaan inuu ka soo baxo la wada gaari maayo
laakiin fataqullah mastadactum inaynu samayno oo aynu samayno marka waxaan leenahay waxaanu furanay 500 oo qof oo waajib inaga saarnaa inaan anagu dhakada ku qaadno oo le danyar oo le agoon oo le dad waaweyn waxaanu ku barnaa lacag la'aan qof lacag laga qaadaa ma jiro waxaanu ka fargaraynaa inaanu bixino macalinka in yaroo aanu u garanay inuu bal calala qalbaskeed kaga bixiyo buuggii qalinkii leyrkii iyo biyihiiba fillaah alxamdu wa nicma marka mudana madaxweyne adoo daalan oo intaas oo dhan soo socday maadaama aanu ku aragnay inaanu hadallo nooga raali noqo waxaanu codsanaynaa maadaama waxa aan wadna ay tahay diinta islaamka inaan ummadda gaarsiino jahligana ka saarno danyar iyo agoon waxaa baxaya ee tirada badan leh beeroolka ha loogu diro markaska ummahatul muuminiin macallimiintiisa haddaan la wada qaadanaynin badh ka mida in laga kafargarayo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in naloo aqbali doono mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ku leenahay mudane madaxweyne annagoo kuu qirayna wanaagaaga ku soo dhawow gobolkaagii aad iyo aadna waan idiin salaamaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waftiguu hogaaminayo qof walba mansabkiisan ku salaamaya uu meesha ku fadhiyo waxaan salaamayaa haweenweynaha gobolka gabiley bacda salaan waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mar koobaad iyo mar labaadba soo dhawow baan leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu kasoo qayb galno shir furan oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan haweenka iyo dhalinyaradu soo hor istaagayaan su-aashay doonaanna weydiin karaan waxna u sheegi karaan waa wax weyn oo aan odhan karo horumarka dalkay ka mid tahay aad iyo aad baan intaa ugu hambalyaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo cid kastoo shirkan kasoo qayb qaadatay mid keliyuun baan ku darayaayo waxaan odhan lahaa somalilan kolley ixtiraaf bay raadinaysaa gabileyna gobolnimay raadinaysaa markaa madaxweynaha iyo madaxda kale ee hor fadhidaba waxaanu ka codsan lahayn inay mooshinka golaha wakiilada nala geeyaan annaguna kaambeynka diyaar baanu nahay gobolnimadana shuruudihii in badan waanu buuxinay ama waan wada buuxinaan odhan karaa markaa waxaanu codsanaynaa in gobolnimada la nala riixo inta kale hambaliyo iyo bogaadin iyo soo dhaweyn uma kusoo gabagabinaya su'aal baan madaxweynaha weydiinaya su-aasha ma badinayo dadku way badan yihiin su-aashaan weydiinaya waxay tahay madaxweyne waxaan doonayaa goormaad ku maxay haydayeen aad ansixinaysaa gobolnimada gabiley su-aashaas maan ku weydiinaya aadna waan ku salaamaya goor baa la helayaa gobonnimadii gobolkii iyo dee gobolnimadaas ku qaladeen waxaan ku sheegaya horta xafiiska madaxtooyada aniga wax nagaga habsana gobolka gabiley oo sharciyadda ah oo awooddeeda xukuumadda ay leedahay ma jirtee siila ayaa dhameeya iga horreeyey wax alle wax lagu darayaa ma jirto waa naga dhaya horaan u dhamay waayo kaambeynkii ugu horreeyey kulmiya galo 2003 waxaanu ku galnay oo aanu sharci ka dhignay oo aanu ilaa maanta ku shaqaynaa 6 gobol iyo gabiley xukuumaddii kulmiye u horreysay markay timidna wixii sharci uga baahnaa xukuumad ahaan arrintaas way ka dhammaatay wuxuu yaallaa ansixintii baarlamaanka gabiley maxaa daahiyey gobonnimadeeda maxuu baarlamaanka ugu rafanaya gabiley waxaa ku dul fadhiya caasimadda hargeysa hadda ku fogay waayo iyada gobolka hawd kii kale la doonayo caasimadda ku fadhida horta waxa awala waayahay marka gabiley la ansixinayo gobolkeeda ee xuduudaheeda la ansixinayo in caasimadda laga saaro gobolka marojeex la yidhaahdo ta gobolku halkaasay taallaa maantana su-aashaasi aad bay u badnayd golaha laftiisa ila la iska canaanan maaye waxaa ka horreeya xeerka caasimadda oo su-aalo badan iskeenaya oo su-aalo badan leh marka halkaasi ku xanimantay haddii alla idhaha baarlamaanka cusub sanadkii hore waynu ogolahay way cartamayeen oo way cusbaan qaalimo laylay ahaayeen oo kolba gobasha tuuraya oo xaggan oo xaggan marka waxaan idinka rabnaa baarlamaanka oo gabiley waxaa idinka rabtaa inaad xeerkii caasimadda guda gashaan oo gabileyna xadkeeda uu caddaado u banaysaan dhulkeeda bad iyo beriga kaasa idinka sugaya arrinta anaga lama haysta waxaa igu hadhay oo siyaasadda aan ka saarayaa su-aashii wanaagsaneyd qoladii ahludiinka ahayd ummahaat ulmuuminiin ay yidhaahdeen macallimiinta ha loogu daro gunadiyo intaa jasaakum ullah macallimiinta aad doonaysaan 2 wasaaradood
ayaa u xor saaran caawid baan ka joogto tii waxbarashada hablaha codsigooda hadduu qoraal yahay wasaaradda diinta iyo wasaaradda awqaafta ka rabaa jawaabtii hablaha loo celin lahaa dhaqsan ay u keentaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu